بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeena xog waran oo aynu ku qaada dhigi doono umuraha muhaajiriinta Soomaaliyeed iyo waliba qaaradda Afrika oo in fara badan dhibaato hor la u keentay dhalinyarada Soomaaliyeed waxa marti ugu ah Cibaar Sheekh Cali Cibaar oo runaantii ah nin aad ugu xeer dheer arimahaasi iyo waliba xagga siyaasadda marka koobaad aan ku soo dhaweeyo martideena عبار الشيخ علي عبار عبار مركز كود كسر دو إذا عدى تي في ETN ما شاء الله ودوس سلو thank you تاني مركز ماشى كبحذي دولتي لحق دلك الصومالية أيها وحى صوب بحذي أمور فرد بدني كمديهين شقلاءان كل دليرت الصوماليات وها أنت أوديرا دجال على ذيد أو بدرس ذيد يتوان سنة سوسعدي كاسا يدليان فرد بدن الصوماليات كلفتي إن قار كم إذا أي صلاح اللان قارنا أي واشان قارنا أي كل إنسان أما أي كل أذان ولا لها يدجال ذاك صعد دلك الصومالية قار كم إذا أي مركز دم مركز وحى أي كسر لا تسي إن يبدلك كتهريبان إسلام مركانا أي ببكسدان مر الله ماشي إسليهين الله لها الحر ينبض آياتها لا بس هو حاسيده كله مهاجرني مدرس أما التهريب كنوع الله يقانو الله يلاقوا أريبهم فربضون كم يجين دتك أولاد كعرية أما دبعت ذي كشرت دلك الصومالية كعرية أيه يقلفتهان تو ذا وحي لاقوا من أرين نقطي كدروا تبدل تعصوا إنه مركز تو أي مركز كعران قوبتها أولادها أي كجيران يجودها دلك الصومالية أي تيمات مركزي أنت أي كجيران وقت وذا التهريب كا إن مالها كل أذان أما يكبابان أنت بدن هيدا قرمد مذا وقابل سن أموراس أيها واحد قياس دت كمان قم وغارية الصومالية إن يتني مركي أولاد دلك الصومالية أي كل أذان بدها ودح يدلك الصومالية يدلك اليمن سيدو كلا بدها ودح يدلك التليانية يولي بدلك سي ليبيا هو أنت بدن لقى مقعبه سين مركز داود يلوحفر بدن وجانا يا وح مرتي عبار الشيخ علي عبار أو إن سياسي الصوماليات أنت بدن أضوضا رمها دلك الصومالي ها دلنيرتا إسلام مركانا وحيابا فر بدن كسر شقيي حقيه حقيه جود دولة فدرال كدلك الصومالية ووقت برلمان كأها قدوميها برلمان ريف حسن الشيخ عدن وحصيدو كلا صومري عبار هيدا اللي يرادو CRD دا أو متكسر شقيني حتى نوحو لتليئوي هي حق قرمدا ميدوبي هيدا اللي يرا UNHCR تا كوسكان دلكاسي كونفور أفريقيا إساقو مركا تلو يتصالا كسية دادك الصومالي دي مهاجرين تا إساقو قد دلك الصومالي يوليبا كونفور أفريقيا يودمدا إيسي مراني كبيدين سيدا ملاوي زيمبابوي زامبيا يودمدا كالي أفريقيا إسلام مركانا إن بدن كدياري دروس يوليبا برنامج ku salaysan waxyaabaha kalifa dariibayaasha dalka Soomaaliya ama dadka Soomaaliyeed iyo waliba bariga Afrika ha soo raacaan sida dadka Etoobiyaanka iyo kuwa lamid ah cibar haye hadaynu marka adiga aan ku soo jeesodday aad tahay nin runaantii in badan wax ka yaqaan xagaas iyo dariibayaasha su'aashida kooban kugu bilaabaya waxay tahay maxaa sababa ugu weyn oo leedahay Allaah waa xididka ama dhumucda ugu weyn ee dadkan ku sababaya inay marka tahriibayaal ay noqdaan ama ay ka tahriibaan dhulkooda maxaa u badan oo keena bismillaahir rahmaanir rahiim marka waxaan u mahad celinayaa TV-ga caalamiga ETN iyo madaxdiisa sharafta leh marka labaad waxa waaye waxa sababi kara wax caam ah oo kulli ka jira dalkii Soomaaliyeed taasoo sabab u ah amaan darada maanta ka taagan dalkii Soomaaliya gaar ahaan dhibaatada qaangaarsatay 20 sano dhaaftay ee ka jirta gudaha magaalada Muqdisho taasoo sababtay in kumanaan kun oo dhalinyaro Soomaaliyeed ah iyo haween iyo odayaal isugu jiraba inay ka haajiraan dalkoodii hooyo kuwaas oo aanan garanaynin meesha ay u socdaan hayeeshe inta badanna kala kulma masiibooyin fara badan oo aan fara ku tiris ahayn marka waxa way dhibaato caam ah dadkaasi meeshii dambe wax la yiraahdo depends on ay ku tiirsanayeen kaga timid ayaa kalifaysa qofka bini'aadamka inuu muhaajir noqdo safro kana safro meeshii uu dhashay una safro meel uusan garanayn waan gartay markay timaado cibaaro waxa tiri inta badan amaan darro ayaa jirta oo dadkani waxay u cararayaan meelay say nabad iyo macnaha rajo ay u helaan ama nolol cusubstaan laakiin
waxa la leeyahay wuxuudu waa ka darooti badal waayo waxaad arkaysaa boqolaal qof oo ka cararay colaada ka aloosan koonfurta dalka Soomaaliya isla markaana hiigsanaya iyagoo isla alaylaha dalkaas Yemen taga Sacuudiga taga soo shaqaysta badda laftigeeda ku harqadaan badda ku dhintaan miyaan la sameeynin daraasad ku salaysan dadka in laga hor istaago maadaama dhibaato intay ka caran hadana dhibaato hor la tagayaan bismillaahir rahmaanir rahiim qofka bini aadamka hotre inuu gurigii oo xaq u lahaa ka guuro una guuro guriyuusan lahayn waxa dhici karta qofkaas inay sabab tahay sababtuna isweydiin ma lahan horaan u soo sheegnay waa nan biis wax la yiraahdo dalkii aan ka jirin sababta labaad oo qofka bini aadamka uu u galiyo naftiisa riski oo u dardaro badiyo sidoo kale dhul la lugeenayo saxara ah oo xayawaanad iyo bahal ku jiraan maca dalika uu haddana qofkii uu sii maro xabsiyo fara badan oo ka duwan noloshii qofka bini aadamka loogu talagalay inuu ku noolaado ayaa waxay tahay riskiga labaad ee qofka bini aadamka naftiisa uu sii gelinayo isagoo markaas Soomaalidu ay tiraahdo kudka guur ee qanja u guur qofku markii uu gurigiisa ka soo guurayo waxba ka soo kiciyay markuu guri kale u sii socdana waa ka daro dibi dhalway taas marka iyada laftigeeda markaan sii micneyno qofkii markuu inta soo baxo doon raaco doontaasoon ahayn xaqiiqadii mid ku salaysan doomankii loogu talagalay badda in lagu safro shactarka ahaa ayuu wuxuu naftiisa saarayaa 4 alwaax oo la isku kabay waa riskiga koowaad oo qofka bini aadamka uu naftiisa marsiinayo waana wax sharciyan iyo diiniyan iyo qaanuun ahaan adduunka caalamka qofka bini aadamka naftiisa lagu ilaalinayo wax ka gudubsan waay midda labaad qofka bini aadamka waxa lagu sheegayaa in loogu talagalay more than 24 hours inuusan ka badan on la-aan joogi karin iyadii laftigeedii aad qofkii waxaad arkaysaa isagoo xadkii loogu talagalay u dhaafay onkiisii 6000 kilometer waxaa Soomaaliga lagu yiraahdaa 6000 kilometer yaa lagu sheegaa inta badan inay safraan oo gawaari ay qaataan oo dhul saxara sida saxaraha Suudaan iyo Liibiya kala u dhaxaysa waa riski inteeda leeg oo baabuurka uu jabi karo wax kastana kugu dhici karo waa bad loogu talagalay dal dhan inuu ku dago waa badkaas loogu ay Soomaalidu ku safraan intooda badan muhaajiriinta Soomaalida sidoo kale markii Afrikada kale isticmaalayaan waxay target ka dhigtaan South Africa kale inay u safraan waxay u maraan almost 5 different countries 5 wadan oo kala duwan qofku wuxuu ku maraa socod ku maraa shantaas wadan waxa ugu soo horeyso dalka Kenya dhibaato kala kulma Tanzania ku xigto dhibaato ka sii weyn oo kala kulma Zambia dhibaato kala kulma ama Malawi as well markuu maraayo Mozambique laga yaabaa inuu u tilaabo iyo sidoo kale Zimbabwe ka bacdi waxa laga yaabaa qofkaas inuu gaaro South Africa qofku marka ma isweydiiyo South Africa ma ahan waa Africa cornerkii ugu xageeyo waay oo waxa la yiraahdaa seabounds adduunka geeska ugu xageeyo waay wuxuu ka imaanayana waa Horn Africa oo dalka Soomaaliya asna lagu sheegaa qaaradiyan inuu geeska kale ka imaanayo marka qaarad oo gees kala markuu jeexay qofka oo intaasna uu ku maray wax la yiraahdo illegal immigrant sharci darro oo san wadan waraaqad caawinaysa dukumeenti caawinaya wax ka badbaadin kara shuruucda caalamka oo ka jira qofku wuxuu isticmaalaa waa socod lacagtiisii oo baxshay in naftiisii riski geliyo waa marka marraba iyada laftigeeda inaan ku sii dheeraado especially waxa way dad ugu talagalay waxa uu sameeynayo way waxa uu ka cararayna waxa uu soo arkay way marka muhiimadda waxay tahay targetka inaan ka hadalno tahriibka qofka Soomaaliga dib intee leegu kala kulma iyada laftigeeda markii aan galo waxa way dib wuxuu kala kulmaa koow naftiisii ku haliga xabsi u galaa baahiyo ugu dhimana saddexdaba waxa waa saddexan kala liidan xabsiga markuu galo waxa la siiyaa waqti ka waqti 24 hours waxa loo ogolyahay qofka maxaabiiska inuu waxelo uu gartay markii uu yiraahdo waa lugayna waxa laga yaabaa inuusan more than 3 days inuusan arkinba meel magaala oo duur cidla uu ku lugayo marka kale uu badda marana almost biyihii dhanaana waxa heen uga ma horeeyaan oo doontii la saaran yahay 3 qofood waa dhibaatada masiibada koowaad oo qofka muhaajirka alaaba la beegsado